madaxweynaha maamul goboleedka Raas Casayr Faarax Maxamuud Yuusuf oo waraysi gaar ah siinayay telefishinka caalamiga ee Hon Cable TV ayaa waxa uu ka warbixiyay safar uu ku joogo dalkan Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi caasimadda dalkan isagoona sheegay in kulamo uu la qaadanayo maamul goboleedyada kale ee ka jira gayiga Soomaaliya isagoona sidoo kale ka hadlay abaaro xooggan oo sheegay inay ka jiraan deegaanada uu ka taliyo magacaygu waxa weeye Faarax Maxamuud Yuusuf Xajoog waxaan ku imi safar shaqo wadankan Kenya magaalada Nairobi halkaas oo aan shaqo ugu imi inaan la kulmo hay'adaha iyo urur goboleedyada Soomaaliyeed dowladda dhexe iyo hay'adaha caalamiga iyo dowladaha donorska ah waxsiiya ummadda Soomaaliyeed arinta ugu weyn oo safarkayga ah oo waxay ku saleysan tahay abaartaas waxa dhacday abaar aad u xun 3 sano ugu dambeysay 2010 2011 iyo 2012 inta hadaba roob fiican kama diin abaar xun baa ka jirta xooli waxay bilaabeen hadda iyo dadka qaybta liidata sida caruurta iyo dadka waaweyn ee dhintaan halkaas abaar xun baa ka jirta abaartaas oo soo socotay intaan soo sheegay 3 sano u jooga meesha waxa weeye inaan gaarsiiyo hay'adaha iyo international community-ga iyo dowladda dhexeba sidii loogu gurman lahaa dadkaas oo wax loo gaarsiin lahaa waa tahay waxa jiray duqeymo laga geystay deegaanka Gombax oo hoostaga maamul goboleedkaasi maxaad kala socotaa iyada taas duqeyntaas waa jirtaa sida loo sheegay ma aha arinta waxa sabab u ahayd Puntland markasta waxay sheegtaa oo Raas Casayr waxay la jeceshahay inay dhibaato ka jirto dhibaato inay ka abuurto waxay yiraahdeen waxba soo galay meesha sida darteed waxa weeye nimanka badda ilaaliya oo la dagaalamo burcadbeeda waxay ku hayaan survey bay ku hayaan ama argaxisaha la dagaalameen dabadna waxay arkeen diyaarad baa soo dhaxmartay soo kormartay magaalada Bargal iyadoo dhex korbay ilaalinaysay waxaaseen xeebahaaseen ilaalinaysay dabadna waxay aragtay kalluumaysatadaasu waxay wateen saxiimado shabaagay badda dhigaan kalluun bay gurtaan markay aragtay waxay ku furtay ama ku tuurtay bulleyr wax la yiraahdo si iftiinki wuxuu keenay dadkii wuxuu keenay argagixiso kays buu keenay inay kala cararaan shabaagii kala gooyaan shabaagii iska gooyaan waayo doontu shabaagta waa ku xiran tahay haday aragto wax threat ku ah ama wax dhibaato ku ah waa inay iska gooyso shabaaga therefore shabaagii bay iska gooyseen waxa laga yaabaa inay shabaago iyo wax gaareen laakiin wax khasaare ah sida ay u sheegeen Puntland oo la yiri 20 baa dhintay intaas dhaawac intaas baabay waxaas waxba kama jiraan gabagabadii waxa uu sheegay in Soomaaliya ay midnimo u baahan tahay isla markaana la soo celiyo xorriyadii Soomaaliya isagoona soo hadal qaaday in xilliga kala guurka dawladda Soomaaliya waqtigaasi markay ay ka baxdo maamul rasmi ah oo Soomaaliyeed uu ka dhalan doono gayiga Soomaaliya Cabdirasaaq Miro Dhoore Hon Cable TV Nairobi Kenya